xildhibaan daahir aamin jeeso oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgallo la doonayo in lagu qaado deegaanada xarakada shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan. Warbixintani waxaa eegaya wariyahayaga Maxamed Qadar Cabdulle. xildhibaan daahir aamin jeeso oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda dhexe ee dalka in mudahana ku sugnaa gudaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay howlgalka ka socda gudaha gobolka ee ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM. daahir aamin jeeso ayaa waxa uu sheegay in ujeedka gobolka uu yimaado ay tahay sidii uu tagi lahaa deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gudaha gobolka, isagoona sheegay in muhiimadiisu ay tahay inuu tago deegaano aad u fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. haddana waxa noo qorshaysan waxa waaye in dhammaan deegaanada ku hareeraysan magaalada Beledweyne laga waayo shabaab qoliyaha nabadiidka laga waayo. targetkayna koowaad waa Luuqjeelo, Rangaabo, Wardhabay, Wabxa, Boqdi, Makoyle, Ceelwarre, intaas oo aan sheegayo waa targetka waa waxa maanta aan tuutaa ugu shanay anoona aanan tagin ama waa dhiman karaa ama inaan tago waa ilaahay idinkii waxaan rajaynaa rabbiga subxaanahu wa ta'aala inaan ka baryayaa inuu noo fududeeyo. waxaa muhiim ah marka in shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada aan sheegay ku nool war waxa aan la dagaalamayna waa dad dambiyad dalkooda ka soo galay oo nabadiid ah oo caalamkii oo dhan takoor ka ah keenta ruuxooda maleeyahay meel dhaawaca ay ku bogsadaan. waad arkayseen maalin dhaweeto markay jidka noo galayeen annaga daawaan dadkayna u wadnay cuntaan u wadnay noloshii ku noolaan lahaydeen ay col leeyihiin. marka shacabka Soomaaliyeed waa jeclaan kari lahaa qofka maanta shabaab aaminsan inuu xiriir toos xildhibaankiisa nahay oo ila soo yeesho oo yiraahdo war noloshaasaan ku haysanaa. waxaan leeyahay shabaab waqtigii ay dalkan sii joogayeen waa gabaabsi. waxa weeye xabadda cidna ma dhaafayso. haddii xabad lagu badanayo waxaan ogaanaynaa nin walba qoriga uu haystaa ay qaldeen ee weliba ay ku qaldeen baraha isbaarada iyo xoolaha dadka ay u xalaaleeyay ay ku qaldeen inay isiga soo noqdaan. xoolo dadeed kuma helaysid. hadda waxa u qorshaysan waa ognahay bishiisa ka soo dhow waxay rabaan inay ceyrsadaan dib dab uma ceyrsanaysiin muxuu ahaay xaqdarro ugu maqaadaysiin sakabeena ka maqaadaysiin sakadana cidii iska laha qaadanaysa. waana ognahay ilaahay dad buu ku waajibiyay dadna waa loogu nasteexay in la siiyo. sidoo kale xildhibaan daahir aamin jeeso ayaa waxa uu sheegay in muhiimada gobolka ay tahay in marka hore ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay gacanta ku dhigaan gudaha gobolka Hiiraan. hadalka xildhibaan daahir aamin jeeso ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay weerar ku qaadayeen deegaanada ay xarakada al-shabaab kaga sugan yihiin gudaha gobolka Hiiraan. Maxamed Qadar Cabdulle, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, Beledweyne.